dugsiga hoose dhexe sare sidka college ee magaalada Burco ayaa maanta munaasabad ballaaran oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay ardaydii kaalmaha hore ka gashay sanad dugsiyeedka dugsigaasi sidoo kale munaasabadani ayaa daaranayd furitaanka sanad dugsiyeedka cusub ee sanadka 2015 ilaa 2016 waxaana munaasabadani ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ay ka mid ahaayeen mas'uuliyiin sare oo ka socotay wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer gudoomiyaha jaamacadda Golis ee magaalada Burco Professor Cabdixakiim Maxamed Cabdilaahi waalidiin arday iyo marti sharaf kale aad u tiro badan waxaana ugu horeynba munaasabadani ka hadlay gudoomiyaha guud ee dugsiga sidka college ee maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe ee sare waxaana si wada jir uga warbixiyeen adeegyada waxbarasho ee dugsigani uu bixiyo waxaana ka mid ahaa hadaladoodii sanad dugsiyeedka 2014-2015 oo munaasabadan aan ugu talagalnay inaan ku furno markaa iskuuliska sidko iyadoo aanu kala saarayno qaybaha ay isugu jiraan qaybta markaa iskuulka hoose dhexe iyo qaybta markaa dugsiga sare ee qaybta secondary-ga sidko schools waa dallad inta badan midaysa institution ballaaran waxaa kaloo jira qayb markaa college oo markaa computerka ah oo markaa teknolojiyada lagu barto haddaynu sii kala qaadno qaybta markaa dugsiga hoose waxaan ugu talagalnay inaanu keenno ama aan ku soo kordhinay macallimiin markaa ajaaniba oo markaa aqoon aan dibadda ka keennay kuwaasoo markaa ku tababaraya ardaydii ka dhisay aqoontii haddana xagga secondary-ga eegna markaa waa secondary runtii marka uu soo bilaabmay ee la eego markuu soo bilaamayey iyo maanta halkuu marayo runtii aad bay u kala fog tahay hal kalaas baan ku soo bilownay halka kalaas oo aan markaa iska bixin karaynba macallimiinta markaa dhigaya oo ardayda maanta markaa gashay imtixaanka ka soo baxday waxay noqonayaan form 3 arday kastooba waxaad samaysaa sidii aad kula tartami lahayd qardada kale qof kastaana qaabku wax u akhristo iyo qaabku wax u qaybo qayee maxaa raayay qayuunbu hadhow halka la yimaada u baahdo ee ah haday tan maktabada laab iyo wax kasta tahay inaan diyaarinay wixii naga dhimanna aan tan kala furayo aan diyaarinayno waxa iyaguna munaasabadani ka hadlay agaasimaha dugsiyada gaarka loo leeyahay ee wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer iyo gudoomiyaha jaamacadda Golis Professor Cabdixakiim oo ka warbixiyay faa'iidada waxbarashadu ay leedahay kuna hambaliyay ardaydii kaalmaha hore ka guuleysatay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa iskuulada sidko institutions ama institution markaa ballaaran oo isku xidhan hoosna yimaada jaamacadda Golis kelmadda kale uu raaciyay ee ah tahriibta tacliinta waa qodob isnayminka miiska ama qorshaha wasaaradda dul saaran la doonayo in la dabargooyo oo tacliintu waxay leedahay maraaxil wax looga maarmi waayay ardaygu inay cimrigiisa la korto laga soo bilaabo maalinta uu la qoro maskaxdiisa iyo aqligiisa iyo daadiisa ayaa uula ah koraya taaniyo taalito raabico khaamiso ilaa thaamin markuu matalan ka gaadho dabadna secondary-ga ayuu gudbayaa lama qabsan karo ama lama keeni karo ardayga isagu maraaxilkiisii soo dhameeyay ee si wanaagsan wuxuu soo bartay ugu dambeyntiina waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay sanad dugsiyeedka sidka college iyagoo ardayduna ay ku maamuuseen macallimiintii shahaadooyin waa Khadar Cabdirasaaq Salebaan Khadar Hanad shabakada caalamiga ee Adwanaag News magaalada Burco.